dowladda hoose degmada Laascaanood oo kaashanaysa ciidanka bilayska ee hormuud ka yahay taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Sool ayaa howlgal ballaaran oo ay ku baneynayaan wadooyinka koonfurta magaalada Laascaanood ka bilaabay maanta howlgalkaas in muddo socon doona waxaana howlgalkaasi ku weheliyay shaqaalaha dowladda hoose ciidamada bilayska oo hogaaminaya taliyaha qaybta bilayska ee gobolka Sool gaashaan la dhaxay Ibrahim Jaamacad waxaana howlgalkan hormuud ka maamulka dowladda hoose uu hogaaminayo gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Laascaanood mudane Cabdicasiis Xuseen Taalwale ay weheliyaan qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood ayaa ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood inay gacan ka siiyaan sidii loo soo celin lahaa bilicda magaalada Laascaanood ugu horreynna waxa halkaasi ka hadlay agaasimaha waaxda dhulka dowladda hoose degmada Laascaanood iyo waliba qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka degmada Laascaanood oo sheegay in howlgalkan ay ka midaysan yihiin ka maamul ahaan iyo waliba ka golo deegaanba si loo soo celin lahaa bilicda magaalada Laascaanood dhulkani waa dhulkii lagu baneeyay howlgaladii 2015 markii maayirkii xilkii hore xogayii hore maayirkii hore la bedelayna waxa dib u soo noqdo had iyo jeer caado noqota in marka maamulka dowladda hoose isbedelo dadku soo laba kacleeyaan marka halkan cidlihi ma jirin waa dhabo gurigaasna guri contribution hore lagu ururiyay oo lacagtiis isagana si dhaqsaayaan u rajeynayaan in la furo marka meeshani waa meeshaas cidii isku dayda dhul hore u banaan ama wadana ha ogaato in dariiqa la mariyay maanta oo ay marayso sharciguna uu noqonayo mid shaqeeya ma aha meel wadooyinka cidda ka mas'uulka waa dowladda hoose taariikhda 18 bishii 3 2017 waxaanu banaynay dabooyin aan hore u banayn 2015 taasoo si sharci darra ay dad dib u dageen waxa dadweynaha loogu baaqayaa cid kasta oo isku dayda wada hore loo baneeyay dib u xidhato inaan looga dulqaadanayn maayirkuna waa goluhu kamid ahaa horena uu joogay wadooyinka hore loo baneeyay oo la socda dadka hoguraynayana waxaan leenahay ka digtoonaada inaad dhabo hore loo baneeyay aad dib u degtaan assalaamu calaykum gabagabadina gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Laascaanood mudane Cabdicasiis Xuseen Taalwale ayaa halkaasi hadal ka soo jeediyay kuna booriyay bulshada ku dhaqan magaalada Laascaanood inay iskaga fogaadaan wadooyinka hore loo baneeyay oo dad si sharci darra u dhisteen maanta waan baneynay saad indhiina ku aragtaan guriga halka ka muuqdo hore waxa lagu bixiyay contribution isagana waa sidiisi waa duhin waxaan dadweynaha u sheegaynaa cid walba wado hore la baneeyay ama mid cusub isku dayda inay degto talaabo sharciga waafaqsan baa laga qaadayaa qof walba saa ku bushaareyso qof walba saa ku biyacab wado dambe xidhnaanaysa iyo wado hore lagu soo durko iyo wado waa hore la baneeyo hadda lagu soo dhiiray ninkii aaminsan in degayso candhuuftaada dubuliq barkhad Umar Axmed ulbaanta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland Laascaanood